madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir dhammaan xubnaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyo xaasaskooda dhammaan saaxiibada beesha caalamka iyo marti sharafka sidoo kale dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin qiimo weyn ku leh qalbiyada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa sanad guuradii 66aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil 1960 si ay u noqdaan tiirka difaaca qaranka ilaaliyayaasha midnimada dalka iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan uga hambalyeeynaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeen alifley iyo dabley sidoo kale xaasaska iyo waalidiinta xubnaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyo kashka iyo laabta ka soo go'day oo ku aadan munaasabadda 12 Abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa tiir ku suntan taariikh dheer oo ama ku saleysan geesinimo nafurnimo iyo difaac joogto ah oo ay u galeen dalkooda laga soo bilaabo halgankii xorriyadoonka ilaa maanta ciidankeena waxay mar waliba u taagan yihiin badbaadinta qarannimada ayagoo naftooda u huraayo shacabka iyo calanka Soomaaliyeed maanta iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku jiro dib u dhis haddana waxaa muuqato doorka muhiimka ay ka qaadanayaan ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka qaadanayo sugidda amniga la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta sharafka ummadda Soomaaliyeed guulaha laga gaaray howlgallada socdo waxay muujinayaan kartida tababarka iyo geesinimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo u dhaartay ilaalinta diinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed isla markaana heegan buuxa u ah difaaca dalka habeen iyo dharaar inta badan mudane madaxweyne waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidanka oo heegan ugu jira difaaca dalka gaar ahaan kuwa ku sugan furimaha hore ee dagaalka kuwaasoo maalin iyo habeenba u taagan badbaadinta shacabka Soomaaliyeed sidoo kale mudane madaxweyne waxaan halkan ka xuseynaa dhammaan halyeeyadii naftooda u huray dalka kuwaasoo dhiigooda ku qoray taariikhda sharafta leh ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana suuro geliyay inaan soo gaarno halkan waxaa waajib nagu ah excellency dhammaanteen inaan sii wadno jidkii ay noo jeexeen kana dhabayno dhaartii aan u dhaaranay ee ahayd difaaca diinta dalka iyo dadka mudane madaxweyne ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu mar waliba diyaar u yahay fulinta waajibaadka dastuuriga ah iyagoo ilaalinaya midnimada dalka sharafta calanka ciida iyo dawladnimada Soomaaliyeed ugu dambeyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaan geesinimo midnimo iyo jiritaan qarannimada Soomaaliyeed waa ciidan ka dhashay shacab qalbi wanaagsan oo mar waliba diyaar u ah garab istaaga ciidankooda una taagan ilaalinta sharafta karaamada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed mudane madaxweyne waxaan rabnaa halkan inaan kaaga mahadcelino inaad noo suura gelisay maanta oo aan dib u xaqiijinay ballanqaadkii aad u ballanqaaday agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ahaa mar walba inaad garab taagan tahay isla markaana aad nagu dhiirigelisay ama nagu guwaabisay inaan ka shaqeyno agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horumarkooda waxbarashadooda iyo barbaarintooda intaba ayadoo maanta aan soo dhagax dhignay xarunta hay'adda daryeelka agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Your Excellency mudane madaxweyne shuhadadeena waa iftiinka noo horseeday mustaqbalka ifaya ee aan higsanayno halka geesiyaasha maanta nool ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin difaaca iyo rajada dalkan Soomaaliyeed mudane madaxweyne anuu rabo halkan inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga kooban ee maanta hambalyada ah waxaan rabaa halkan inaan kaaga mahadcelino
sidoo kale aan uga mahad celino xukuumadda oo uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo markasta garab taagan hiil iyo hoona la garab taagan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u gutaan waajibaadkooda qaran. ilaahay subxaanahu wa tacaala shuhadadeena ka aqbalo shahaadadooda. ilaahay ha guuleeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ilaahay ha barakeeyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.